وهذا dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waa salaamaya maanta waxaan leeyahay mowduuc muhiim ah anagu ka soo tabinaynaa xarunta dhexe ee cilmi baarista iyo wacyigelinta ogaal ee saldhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sidaad nooga barateen marba waxaan idin soo jeedinaa mowduuca aan isleenahay uu mudan yahay laga hadlo anagoo ku saleynayna cilmi baaris marka hore lagu soo sameeyo mowduuceena maanta waa mowduuc in badan aad maqasheen laakiin xiisa gaar ah leh mowduucu waa maxay waa mowduuca tahriibka in badan baa tahriibka laga hadlay dabcan laakiin maanta sidii hore si ka duwan baan rabnaa inaan uga hadalno asbaabo jira awgood waxaan jecelahay inaad nala qayb gashaan idinkuna fikradihiina aad ka dhiibataan sida idila tahay iyo maaragtay sida wax u aragtaan waxaan taataaban doonaa dhibaatada tahriibku ay ku hayso bulshooyinka gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed qodobka labaad wuxuu noqon doonaa asbaabta keentay in la tahriibo maxay u tahriibtaa maalin walba kumanaan kun oo qof ayaa tahriiba waay sababta u tahriibisa maxay tahay ma ii sheegi kartaa sababtaas inaan isla wadaagno arinta kale waxa weeye tahriibku dhibaato ummadda ku yahay yes boqolkiiba lambar aad u fara badan 90 iyo ka badan la gaarsiin karo ayaa ah khatar iyo dhibaatooyin uu tahriibku leeyahay hayeeshee maadaama dhibaato uu tahriibku dadkeena ku hayo khasab waa in la helo xalka ayaan ku xijin doonaa qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa talo ay soo jeedinayso xarunta ogaal baa soo jeedinaysa taladan idinla wadaagaysa haddaan ku hormaro qodobka koobaad tahriibku waa inaad dhulkaaga ka tagto adoo aadaya ama u hijroonaya wadan kale markaad wadanka kale tagto waxaad is leedahay dhibaatada ku haysata ayaad kaga bixi doontaa haday tahay dhibaato dhaqaale haday tahay mid amni iyo haday tahay mid kale oo iska faakahaysiya hayeeshee dadyowga degan geeska Afrika waxay ku caan bixeen inay u tahriibaan ama ay u hijroodaan wadamada horumaray bay dadku aadaan iyagoo intooda badan maraya dariiqan sharci ahayn oo loo yaqaan tahriibka marka la tago waxa la tagayaa waxa la marayaa wadooyin dhaadheer khatar fara badan ay ku wareegsan yihiin dhibaatooyin fara badan baa dadka qabsada dhibaatooyinka ka qabsada waxa kamid ah xabsi kufsi gabdhaha loo geysto dhac waxay siteen laga dhaco dadka afduubasho iyo madax furasho in la weydiisto la afduubto dhibaatooyin fara badan ayaa ka qabsada dhibaatooyinka faraha badan inta kaga ma haraan markay ka gudbaan wadamada transitka ay ku yihiin sida tusaale ahaan Liibiya oo kale Soomaalidu aad u maraan Central Mediterranean ka inta badan la maraa oo khatarta ugu badan meesha ay ka soo dadku ay ka waajahaan dhibaatooyinka laga kulmo waxa kamid ah dadka wadada amara intooda ka safayf gareysa ama ka badbaada wadada khatarta badan oo gaajada iyo rafaadka iyo silica iyo dhibaatooyinka faraha badan ay ka jiraan inta ka badbaada oo magafaha iyo wax loo yaqaan canaasirta ku qowleysata dadka dhiban ee masaakiinta ah inta ka badbaada badda ayaa hadana sugaysa oo khatar aad u weyn ah baddu way ku sugaysaa hadaad wadada amarto baddu maxay cuntaa dadka liqdaa baddu waxa lagu tilmaamay waxaan maanta cilmi baaristeena ama barnaamijkan aad la wadaagayno cilmi baaristan ku soo sameeynay sourceska aan isticmaalay waxa kamid ah hay'adda loo yaqaan International Organization for Migration IOM waxay sameysay 2017kii sanadkii hadda naga tagay ayay waxay soo saartay report ay kaga hadlaysaa dadka Soomaalida ah ee tahriiba waxay sheegtay dadka halka mara intooda badan inay badda ku dhintaan in yar baa badbaada okay in yar baa ka badbaada inta markay hadaad ku jirto qofka badbaaday halka tagaysaa waxa tagaysaa Malta jasiirad waxa weeyaan Afrika daris la ah oo dhinaca Yurub ku taala fara qofka laga dhigaa dhibaatooyin fara badan baa laga kulmaa mid dhaqaale caafimaad fara laga dhigaa shaqo ma jirto
in yar baa ka gudubta oo u gudubta Talyaaniga intaana faraa laga dhigo mashaakil baa sugaysa Yurub markay tagaan oo halka qofka tahriibka ku socday Yurub galo wadamada horumaray Yurub mid kamid ah iska dhiibo haddana waxa sugaysa vetting in la baaro asalkiisa farciisa waxaana suurtagal ah in loo diido maxaad soo martay haddaad soo tahriibtay waxaad soo martay koow xaafadiinni baad ka dhuumatay inta badan kiisaskaas saas ay u badan yihiin qofka xaafadoodu ka cararaya wuxuu tegayaa wadamadaas transitka sida Liibiya Ethiopia Suudaan dhulkaas oo maraya kharash buu galaya magafa qabsanaya kumanaan kun oo dollar oo lacag weydiisanaya dadkii xaafadii ka soo tahriibay oo intooda badan ay dhaqaale xume iyo amni darro uga soo tahriibeen dabcan amni darrada iyo dhaqaale xumaduna way wada socdaan marka ay u tagaan dadkaas dhibaata qabsata hooyadii ma haysto waxay dadka ku caawiso waxa jirta aan rabaa inaan la wadaago maansa kooban oo u tiriyay abwaan dhalinyar oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa Maxamed Saalax Maare waa nin dhalinyaro ah maansada wuxuu u bixiyay xabsi tahriib waxa kamid ah hooyadii calaacalaysa inankeeda ama inanteedii magafa ku qabsaday meel dhexe oo lacag isoo weydii leeyahay marba la buquujinayo la jijiminayo waxay tiri dhibaatada ay haysataan waxa gaan dhaqaale kaaga keena waa lagu xiray waxay tiri xabuub baan iibiyaa xawaashkana waan gadaa cadceedan xiiqsanahay ama cadceedan xiiqaya xabeebi afkii dan tartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasano wali waan sitaa magafe adiga igu xiray xabsiga adiga ay dhex dhigay macnaha xabada adiga igu ganay hurdada adiga iga xaday adaa fikir ii xidhxidhay xalaal baan ku dhalee xumida wiilkayow ma hayo xoolo iyo lacag balada u fiirso ma hayo xoolo iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xawaasha hadaad gashana xaq weeyaan geeriduye miyaan ku soo xadaa macna aad bay calaacalaysa xagaan wax ka keenaa aan kugu caawiyo taladu way iga xuntahay ma xoolaan soo dhacaa ma xaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtooy xagaan aadaa hadeer hooyada saas oo calaacalaysa wixii la halaa la isugu ka daray guriga iyo jagay la iibiyay dadka masaakiinta lagu dhex-maray sida hooyooyin badan oo social media laga daawaday iyagoo maartay aad uga xun dhibaatada ciyaalkooda qabsatay kadib markii lagu soo iibiyo oo Yurub tagto wali mashaakilkaas sugaysa naftaada biimaad gelisay hantida reerkiina ama wixii dadka laga heli karay waa baabisay haddana shaqo la'aan iyo dhibaatooyin far badan oo kale ayaad kula kulantay Yurub wax badan ma soo kordhin okay dhibaatooyinku aad bay badan yihiin waxyaalo fara badan baa dhibaatooyinka ka qayb qaata in ay maaragtay waxa weeyaan dadku ay tahriibaan kadibna ay iyagoo moodaya inay meel fiican tagi doonaan haddana dhibaatooyinka dadka tahriibay baa nagala qayb qaadan doona oo iyaguna sheegi doona asbaabta keenta tahriibka maxaa keena ba iyagana isdul taagayna tahriibka bal maxaa keena qofku inuu tahriibo sad ogtihiin dalka Soomaaliya dhibaato ka jirta dhibaato amni mid dhaqaale maxaan ku raahdaa mid bulsho inta wada ka jira tan iyo burburkii dawladda dhexe 1991 Soomaaliya waxay gashay xaalad adag bay gashay waxa lagu tilmaamay wadanka adduunka ugu horeeya ee fashilmay dawladnimada failed state buu noqday fragile state baa lagu tilmaamay gaaja dhacday dhibaato dhacday colaad baa dhacday colaadda waxa ka qayb qaatay qabaa'ilka oo waxa ka qayb qaatay maleeshiya siyaasadeed waxa ka qayb qaatay external forces quwado banaanka ka yimid oo u isticmaalay dadka in la qixiyo oo la barakiciyo tactic dagaal oo isticmaalaya haddana saasoo ay tahay Soomaaliya dhibaatadii xagga xabadaha la isku dhigay soo degtay inkastoo dadka la laayo oo dhibaatooyin fara badan ay maartay dhalinyarada haystaan waxyaalaha
dadka ku keena inay tahriibaan waxaa ka mid ah shaqo la'aanta waxyaalaha ugu badan dhalinyarada Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa 70% inay bulshada ka yihiin intooda badan shaqo ma haystaan ana development unemployment labada mushkilad isku haysata qofku wuxuu doonayaa nolol inuu helo waxyaalaha keena qofku inuu tahriibo waxa ka mid ah dadka qurbaha jira oo la arkay inay kharashaad iyo lacag soo dhiibaan oo intoodii Ilaahay og yahay say ku tageen ama meesha ka shaqeeyaan aan la garin karin say wax u qabteen laga yaabo inay wax isku soo dardareen ama guri ay dhisaan ama gabadh ay ka guursadaan ama xoogaa kharasha taas waxay keenaysaa dhalinyarada inay laab kacaan waxa kale oo jira dad iyaguna la yiraahdo diaspora ama qurba joogta Soomaalida oo Yurub galay iyo meelo badan oo Mareykanka iyo North America oo dhan iyo meelo kale adduunka kamid ah oo iyaguna ka shaqeeyay inay dhiirigeliyaan dhalinyaradu inay ka baxdo dalka oo ay tahriibaan si ay oo report-keeda ku sheegayso report-kaas wuxuu soo baxay April 2016 mid baa soo baxay 2017 mid baa soo baxaysna report-da waxay ku sheegaysaa IOM2 iyadoo soo xiganaysa meelo kala duwan oo xogaal ah diasporahu inay dhiirigeliyaan dadku inay ka baxaan dalka oo kharashaad waxa la tilmaamay boqolkiiba 65 dadka tahriiba inay xawaaladaha lacag ka qaataan oo dadkaas ay tahriibiyaan waxaan oran lahayn marka kuwaas waxa weeyaan dhibaatadii baad ku kordhiseen dhalinyarada ka daaya halka ayay marka gali doontaa taasi qodobka kale waxa weeyaan waxa la yiraahdaa family strategy baa lagu tilmaamay family strategy waxa weeye family-ka isku imanaya waxa leeyahay inuu dhibaato jirta dhaqaale ma jiro qof aynu dirno saasa qof lagu diraa markaas waxa loo diraa Yurub dhibaatooyinka intooda badan way ku dhintaan in yarba ka badbaada marka iyaduna waa qayb dheer gelisa maxaan ku dhahdayay waxyaalo kale far badan baa iyaguna jira oo dadka Soomaaliyeed ay la socdaan asbaabta keentay in dadku ay tahriibaan okay hal maxaa ah hal waxa hal ah tahriibka haday tahay in la joojiyo waxa hal ah arrimo dhowra koow in dadku ay ogaadaan khatarta meesha ku jirta dhibaatada laga kulmo tahriibka dadku inay ogaadaan koow labo in dhalinyarada loo sameeyo skills IOM2 waxay sheegtay report-keeda dhalinyarada Soomaalidu in dhibaatada weyn inay ka haysato skills-ka xirfad vocational training dadku haday bartaan xirfadaha ay ka mid ka tahay koow alxanka dhismaha korontada sharqaanka ama dawaarka waxyaalaha noocaas ay bartaan dadku waxay la soo bixi karaan nolol maalmoodkooda bay la soo bixi karaan horay ayayna u sii socon karaan noloshoodana way hagaajin karaan waxa kale oo kamid ah lacagaha lagu bixinay dhalinyarada loo soo diray ku tahriiba ama guri loogu gaday hadhow markii ma ka qabsado in lacagtaas lagaga bixiyo education wanaagsan oo loogu diro institutionada caalamiga ah waayo markii $20,000 qofku ama $30,000 Yurub ku tago lacagta halfkeed ama rubuceed ayaa laga yaabaa in jaamacad caalami uu kaga soo bixi lahaa dhalinyaradu bio information dhalinyarada tahriibta waxa report-ka IOM-ta lagu tilmaamay in majority-gooda ay secondary ka bixeen ama dugsiga sare ay ka bixeen in badan oo kamid ah almost half of them 50% dugsiga sare ka bixeen soddon iyo kow waxa lagu tilmaamay inay dugsi hoose ka bixeen 4% kaliya ayaa la sheegay inaysan waxba baran sideedaba dadka tahriibay that means dadku waxbay barteen dhalinyarada wax bartay in jaamacada loo diro oo lacagahaas lagu buush gareeyo inay jaamacada dhigtaan hadhowna ay noloshooda iyo family-koodaba ay kor u qaadaan waxa kale oo kamid ah wadanka in la dajiyo xasilooni la raadiyo dadka Soomaalida khatarta intii ku badbaada in dalkooda xalistaan hadayna shacabka xalku ka iman xal weligay ma imanayo in dadku isku tagaan gacmaha la isqabsado la yimaado kor loo qaado political empathy-ga ama ka warqabka siyaasadeed dadku kor u qaadaan ay doortaan leadership wanaagsan oo dalka horumariya lana shaqeeyaan dawladnimada la dhiso dhalinyarada oo skills loo sameeyo maxaan ku raaddaa waxbarasho fiican oo tayo loo diro bedelkii lacagta lagu bixin lahaa meelaha khasaare ah waxyaalahaas waxay ka mid noqon karaan waxyaalaha ka caawin kara tahriibka waxa ugu dambeysana qodobka afraad oo ah talo xarunta wacyigelinta iyo aqoon baarista ee ogaal waxay u soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda iyo dadkooda meel kasta ay joogaan regionka ka degan yihiin in xarumuhu oo ay ugu horeyso ogaal
ay furi doonto barnaamijyo maxaan ku dhahdaayay vocational training oo lagu sameeyo dhalinyaradu inay xirfado sameystaan xirfadaha in la kordhiyo geeska oo dhan laga sameeyo dhammaan wadamada laga sameeyo si dhalinyaradu ay u helaan meel ay yoomiyahooda oo la soo baxaan shaqo daraduna ay ka baxaan xaruntu waxay ku dhiirigelinaysaa iyadana saas oo kale dhalinyaradu inay la soo xiriiraan barnaamijyada cilmi baarista ee ay xaruntu wado iyo traininadaba si ay uga faa'iideystaan barnaamijyadan iyo kuwa kale oo la mid ah aad iyo aad ay u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.